kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada Bisla TV. qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray doorashada Soomaaliya iyo jadwal la soo saaray, xaaladii ugu dambeysay ee magaaladii Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ay ku dagaalameen, dabaaldegyo iyo xaalado aan la saadaalin karin oo ka jirta gobolka Tigray iyo magaalada Mekelle, madaxweynihii hore ee South Africa oo xukun maxkamadeed lagu riday, iyo Israa'iil oo safaarad ka furatay magaalada Abu Dhabi iyadoo ay wasiiro iyo warbaahinta caalamiga ah ay ka qayb galeen. haatanna ku soo dhawaada inta aad maqasheen oo faahfaahsan. ciidamada dowladda oo isugu jira military, boolis iyo nabad sugid iyo ciidamada daraawiishta Galmudug ayaa degmada Wisil ka sameeyay saakay howlgal miino baarisa. amniga deegaanka ayaa aad loo adkeeyay iyo deegaanada ku xeeran, waxaana gacanta ku haya ciidamada kala duwan ee halkaasi gurmad ahaanta u tagay. dhowaan ayay ahayd markii Al-Shabaab halkaasi ay weerar ay ku qaadeen, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka deegaanka iyo dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay. saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa sheegay in ay weli ku raad joogaan Al-Shabaabkii 27 bishan Wisil soo weeraray. golaha wadatashiga ee doorashada Soomaaliya oo labadii maalin ee ugu dambeysay kulan uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u soo saaray jadwalka cusub ee doorashada Soomaaliya, maadaama jadwalkii hore uu fashilmay. golaha wadatashiga ee doorashada Soomaaliya ayaa sheegay in gudiyada doorashada loo furi doono tababar, isla markaana ay dooran doonaan hoggaanka 30 Juun ilaa 5 Juulaay ee sanadkan ku jirno 2021. golaha wadatashiga ayaa jadwalka cusub ee doorashooyinka ku sheegay in doorashada xubnaha aqalka sare la qaban doono 25 Juulaay isla sanadkan 2021. sidoo kale jadwalka ayaa lagu sheegay in soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada xildhibaanada aqalka hoose la qaban doono 15 Juulaay ilaa 10 Agoosto 2021, iyada oo doorashada xildhibaanada baarlamaanka la qaban doono 10 Agoosto ilaa 10 Sebtembar isla sanadkan 2021. dhaarinta xildhibaanada labada aqal iyo doorashooyinka labada guddoon ayaa lagu sheegay jadwalka cusub ee la qaban doono 20 Sebtembar 2021. ugu dambeyntii, golaha wadatashiga ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 10 Oktoobar ee sanadkan 2021. afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Macalimow oo arrintan ka hadlay ayaa waxa uu yiri sida tan: بسم الله الرحمن الرحيم. golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ayaa shalay oo 28 iyo maanta oo 29 ahayd waxa ay ku shireen magaalada Muqdisho. shirkaas oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxaa sidoo kale qadka fogaan araga kaga qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isna goobjoog ahaa. shirkaas madaxdu ay ka hadlaysay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu horeyn ajanduhu waxa uu ahaa oo ay ka hadlayeen warbixin horumarkii laga sameeyay wixii ka dambeeyay heshiiskii halkan ay ku yeesheen 27 May oo ay iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi. sidoo kale waxaa ka mid ahaa arinta ama shaqada la taliyaasha guddiga farsamo ee golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ka shaqeynaya. sidoo kale waxaa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada, habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyay. marka arrinta laga hadlayna golaha wadatashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ama qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 50%, taasoo ahayd codsi maaragtay ka yimid
ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wada tashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka. sidoo kale waxaa laga wada hadlay habraaca maareynta maaliyadda doorashada iyo weliba jadwalka doorashada oo la soo saaray. jadwalka doorashada golahu waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah kow tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada waxa uu dhacayaa 30 Juun oo ah bari ilaa iyo 5 Julaay. waa tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada ay sameynayaan waa guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka. labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyay inay dhacdo 25 Julaay ee sanadkan 2021. sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 23 Julaay. afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 Julaay ilaa 10 Agoosto 2021. shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10 Agoosto ilaa iyo 10 Sebtembar. lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada aqal waa 20 Sebtembar 2020 sida la qorsheeyay. ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10 Oktoobar 2021. kaasi waa jadwalka doorashada. waxayna taa barbar socotay magacaabis uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya markii uu arkay go'aamada heshiiskii 27 May 2021 qodobkiisa saddexaad ee hanaanka xalinta khilaafaadka gobolka Gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabidda guddiga dib u heshiisiinta Gado oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo aysan ku jirin Jubbaland. markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardargeliyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha Gado ay aad muhiim u tahay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran. kow mudane Maxamed Cali Caadle wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle. labo Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Puntland. Axmed Madoobe Nuno wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Aadan Cusmaan Xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Galmudug. qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si degdeg ah ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la sameynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso. qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii 27 May 2021 qodobkiisa saddexaad. qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay wabillahi tawfiiq. dabaaldegyo waaweyn ayaa xalay ilaa iyo saaka ka socday magaalada Makalla ee caasimadda maamulka Tigray ee dalka Itoobiya kadib markii ay halkaasi dib u qabsadeen ciidamada qowmiyadda Tigray lagana saaray maamulkii oo halkaasi ka dhisay Abiy Ahmed iyo ciidamadiisa. ciidamada difaaca Tigray ee TDF-ta loo garan og yahay ayaa si buuxda ugala wareegay magaalada. indhahayga ayaan ku arkay way soo galeen, waxaa sidaas yiri xubin ka mida maamulkii oo halkaasi ka dhisay Abiy ee laga eriyay. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa xaqiijiyay in ciidamada TDF-ta ay ku yimaadeen baabuurta xamuulka iyo kuwa yaryar oo tiro badan. soo gelitaankooda magaalada ayaa dhaliyay dabaaldegyo xoogan, waxayna askarta kor u ridayeen rasaas halka ay shacabkuna isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo wato calanka Tigrayga. magaaladu waa ay dabaaldegaysaa, qof walba waa uu qoob ka ciyaaraya, ayuu yiri xubin ka mida maamulka ku meel gaarka ahaa ee Abiy Ahmed oo dhisay ee shalay laga eriyay magaalada Makalla. dadka oo dhan ayaa faraxsan, muusig ayaa wadooyinka lagu garaacaya, sidoo kale waxa ay dadka oo dhan ridayaan buleer, mana aqaano sida ay ku helayaan. waxaa isna sidaasi u sheegay AFP qof ka mida dadka deegaanka.
maamulka ku-meel gaarka ahaa ee uu Abiy Ahmed halkaasi ka dhisay ayaa magaalada ka cararay Isniintii kadib markii ay ku soo dhawaadeen ciidamada mucaaradka. Goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada federaalka ah iyo booliska ee Addis Ababa raacsanaa ay ka baxeen magaalada. Dalalka Mareykanka, Ireland iyo UK ayaa Isniintii ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeelanaya xaaladda gobolka Tigray, sida ay ilawareedyo u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa lagu helay dambi xaqiraad maxkamadeed ah waxaana lagu xukumay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii uu ka hor yimid amar maxkamadeed oo ahaa inuu kasoo hormuuqdo baaritaan lagu sameeyay eedeymo ballaaran oo musuqmaasuq la xiriira inta uu xilka hayay sanadihii 2009 ilaa 2018. Zuma ma uusan joogin maxkamadda xilliga uu xukunka dhacayay Talaadadii maanta, waxaana lagu amray inuu 5 maalmood gudahood iska soo xaadiriyo saldhigyada ciidamada booliska ay leeyihiin magaalooyin ay ku jirto Johannesburg. Diblomaasiga ugu sarreeya Israel Yair Lapid ayaa furay safaaradii ugu horeysay ee Yuhuudda ku yeelato Khaliijka isagoo ku guda jira safar uu ku tagayo dalka isu taga Imaaraadka Carabta kadib markii uu xiriirka u dhexeeya Israel iyo Imaaraadku uu caadi noqday sanadkii hore ee la soo dhaafay. Furitaanka safaaradda Israel ee Abu Dhabi oo uu la furay wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee Imaaraadka ayuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ah isaga oo wata sawir iyo wasiirka Imaaraadka Carabta Noura Al-Kaabi oo xariga ka jaraya safaaradda. Wasaaraddu waxa ay ku tilmaantay booqasho taariikhi ah oo ay ku tagtay boqortooyada Khaliijka. Gelitaanka saxaafadda ee furitaanka safaaradda ee Abu Dhabi waxa ay si aad ah ugu koobnayd warbaahinta dowladda ku xiran ee Imaaraadka, ayay tiri wasaaradda. Israel iyo Imaaraadka ayaa xiriir buuxa oo diblomaasiyadeed wada aasaasay sanadkii la soo dhaafay kadib cadaadis uu saaray maamulkii hore ee Trump. Intaa kadib labada dal ayaa kala saxiixday heshiis uu Mareykanku dhexdhexaadinayay oo loo yaqaano heshiiskii Abraham. Intaan xogtan mid lamid aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum.